السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الهانتي بكسر دوادا halkaad naga daawanaysaan waa SWC Media muuqaalkeena waxaan uga hadlaynaa sanadkan cusub 2020ka bulshada Soomaaliyeed maxaa ku soo kordhay iyo su'aasha oo miiska inoo saaran aan falaqeyn doono Soomaalida boqolkiiba boqol ma muslim ba mise ku xoroobay gumaysiga islaamka iyo cadaalad darrada aan ugu hambalyeeynayo runtii naftayda iyo nafafka kale oo gabdhaha oo aqliga badan baan u hambalyeynayaa waxaan maanta isku hambalyeynayaa 8 Maarso 2020 inaan ka xoroobay inaan aaminsanayn inaan aqliga ka liito oo ragga ka aqli xumahay oo diinta ay tiri dumarku waa naaqis waxa mahad iska leh inaan maanta aaminsanayn inaan marqaatigaygu xaafiyahay Soomaaliyeed oo muslim ahaan jirtay oo diinta islaamka ka baxday sida ay hore ugu dhawaajisay waxayna ka shaqeysaa in gabdhaha Soomaaliyeed oo muuminiinta ah ee diinta islaamka ka saarto ayadoo adeegsanaysa baraha bulshada kanaalkan aad u jeedaan waxa lagu marin habaabiyaa gabdhaha Soomaaliyeed oo muslimka ah kanaalkan waxa lagu soo bandhigaa muuqaalidka diinteena suuban ee islaamka waxaan leenahay aayadahaas ka bilaabanaya 42 suuratul maa'ida kuna dhamaanaya aayada 68 ee suuratul maa'ida dhammaantood waxay ka sheekaynayaan dadka yahuudda ay ka sheekaynayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu uga warramayaa ola yahuuda wixii lagu xukumi lahaa iyo wixii ku jira shareecadoodii iyo waxay isku maamuli lahaayeen ayuu ka sheekaynayaa qolyaha uu khitaabka ku socdo waa qolyo yahuudeed idan xeerkaas iyo shareecadaas yahuudeed annagu shareeca inooma noqonayo aan dul istaagno aayadda 43 suuratul maa'ida waa sidoo bartilmaamsaday odaygan wuxuu leeyahay aayadaasi waa xeer yahuudeed ma ahan xeer islaam diinta islaamka muslimiinta maxay ka dhaheen bal daawo ربنا عز وجل يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص من تصدق به فهو كفارة له كتبنا عليهم على من؟ على بني إسرائيل فيها أي في التوراة فيها يعني أين؟ في التوراة لكن هذا محمول على أن شرع من قبلنا شرع لنا مسألة وصولية معروفة لكن هنا اتفق العلماء على أن هذا شرع لنا سورة فيروز كوفيد والفيروز المبيد بل عجبوا أن جاءهم من الصين الوعيد فقال المؤمنون ملاك عتيد daawadayaal waxaad soo dhageysateen ma ahan quraankii saxda ahaa oo ah kalaamullah subhanahu wa ta'ala balse waa aayado quraan kariimka qaar kamid ah oo la soo jarjaray oo meel la isku keenay haddana micnahooda isburinaya haddana waxay sheeganayaan inay la yimaadeen quraan waa sida hore ugu daashay kufaaru quraash inay la yimaadeen quraan ama hal aayad xitaa way la imaan waayeen waxaad ogaataan muslimiinta Soomaalida ah dadkan haddii xumaanta aan ka reebi weyno oo wanaag aan u sheegi weyno haddii timaado ciqaabta Allah subhanahu wa ta'ala waxaad ogaataan ciqaabtaas inaan u wada sinaan doono lagu aflagaadinayo why who are you are you Muslim really because maanta waxa jira oo meel walba waxaan lecture-adan aad u daawada I watch lectures Islamic video tayraladoodu ay yihiin lecture caadi oo islaam ku saabsan aadmoodis ama rasuulkii magaciisa ku yaalo nabi maxamed samayn jiray sallallahu alayhi wa sallam oo ayaad arkaysaa marmarka qaarkood daawad samaysaa martan baa ka fahmaysaa in actually lagu caayo rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam dadkan
حديثي سو قادنيا سورado ayay aayadaha qaar ka soo qaadanayaan out of context waxa soo dhan qofka daciifka shaqo ku dhacay xisnay Allah diin ma waxani rasuulki ba waxa sallallahu alayhi wasallam qofkii aqligeeri diintii uu ka fogaanaya qofka kale diintii garanayaan iimaankiisu buuxaana markiiba fiidiha uu ka cararaya waxa muhiim ah inaan ogaano inay jiraan dad halka lagu jira inay diinta islaamka ceebeeyaan oo cabaarayaan taa macnaheedu maaha qof kasta oo inaga mid ah oo dad muslimiina wax ka sheegaa inay diinta islaamka caayaan sida dad badani ay marmarka qaarkood u qaataan oo aynaan ogolaynba inaynu waxba ka hadallo because wixii laga hadla waxa leeyahay galbeedka ka dambeeya oo diinta islaamka lagu caaya no waa inaynu kala saarnaa all or nothing maaha it shouldn't be all or nothing waynu kala garan karnaa inagoo xumaanta ka hortegayna oo garowsanayna in haddii aanay muslimiintu gabin kaalintoodii maanta dhibaatada inagu dhacaysaaba inagoo that powerful that many people that strong ana inagu dhacdeen. It's because we're not practicing the Sunnah. We're not practicing Islam. No practice karayno. Diinteena. More dhaqan baynu practice karayna. Dhaqan baynu practice karayna. Baynu si diinta ka dhignay oo go'ay diinta huwini. daawadayaal waxaan idiin soo gudbinayaa Sheekh Abdiraxmaan Maxamed Cali oo ka hadlaya Soomaali ridowday oo saameynta bulshada ku dhex yeelan karaan. إنا لله وإنا إليه راجعون. دراسة السمية لابد كون يفر التوان كأيا وحي الشيء ودن كأوجو بدن أو دين الإسلام كلاجة بحسنة كي يا وحى كانت تتحقق في المغرب بين صوماليا وكان الشيخ سعيد هاي وأنت شفاهينا يا وحكوخي هاتين كاي بربر ديجانتي كريستانتي وحكا وحي لهذه 2014 كي وحكا وحي 23% بكا بحي دين تودا
christianity waxaa ka baxay boqolkiiba 3 waxaa ku soo hoyda soo galay oo soo noqday boqolkiiba 6%. kuwaas oo dhammaan soo waxa weeye marka loo yimaado muslimiinta inta ka baxda baa diinta boqolkiiba waxaa soo gala horta ayna ku bushaarinaya 3 boqolkiiba 3 baa soo gala boqolkiiba waxaa ka baxa muslimiinta diinta waxaa ka baxa 3 boqolkiiba akhrista sariska doona google garaya 2014 xaruf muslimiinta ee youthka waliba dhalinyarada boqolkiiba 3 ma ka baxayay 2014 way ku celiyeen 2017 bay ku bilaabeen waxaa ka baxay boqolkiiba 4 يعني waxaan u jeednaa hadday magaaladan 10,000 ay degan yihiin waa rubuc baa baxaya sanad walba waxaa ka baxa diinta boqolkiiba 24%. waaw waa musiiba waxaa ugu horeysa waa Iran ay sheegay waa musuqa xigada Pakistan Afghanistan Soomaalida carruurtana waxaa ka guuxaya إلهي وحكو ويديسنا بأسماء الحسنى والصفات العلى أتانا الدنيا ذاك أركويني رؤيا ديسا آخرين أنو نقخدين إلهي وحكو ويديسنا يا تبارك وتعالى إنو دركيسا نقعفيو إلهي وحكو ويديسنا يا تبارك وتعالى إنو آخر أروين نقخدين دركيسا يا علنكيسا اللي واقيسا وإنو حاضريو إلهي تاسا ويديسنا يا تبارك وتعالى